xaflad ballaaran oo lagu xuseeyay aasaaskii dowladda Puntland oo ku beegan 1 Agoosto ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Oslo ee waddanka Norway. Munaasabaddan oo ahayd mid aan horey looga arag nooceeda waddanka Norway gaar ahaan magaalada Oslo ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Puntland ee waddanka Norway. madasha xusku ka dhacay oo ahayd goob aad loo soo qurxiyay ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan kuwaasi oo isugu jiray Soomaali weyn iyo ajaanib ka socotay dawladda iyo xisbiyada waddanka Norway. munaasabadda ayaa ugu horeyn waxaa daahfuray gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee waddanka Norway injineer Cabdifataax Cabbaas Cali isagoona ka warbixiyay aasaaskii dawladda Puntland iyo halgankii dheeraa ee ay soo martay. markaan saa leeyahay waxaan uga jeedaa waa markii xukuumadda ugu horeysay ee Puntland la dhisay. madaxweynaha lama dooran Agooskoodeeda ee waxaa la doortay July dhamaadkeedii. marka xukuumaddii ugu horeysay oo ka koobnayd 9 wasiir ayaa waxaa la dhisay 1998 1 August. wasiiradaas oo in badan ka mid ah ay dhinteen qaarna ay nool yihiin waxa ka mid ahaa Siciid Caduur oo ahaa wasiirka maaliyadda, waxa ka mid ah Xasan Abshir Faarax oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha, waxa ka mid ah Axmed waxa ka mid ah Cawad Casharo oo ahaa wasiirka warfaafinta, علي عبد الجير oo ahaa wasiirkii howlaha guud, waxa kamid ahaa Chester oo ahaa wasiirkii arrimaha bulshada. 9 wasiir kaliya ahaayeen, hadeerna waa 19 wasiir. sidoo kale waxaa khadka telefoonka soo galay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Cami isagoona salaan kadib jaaliyadda Norway ugu hambalyeeyay munaasabadda. sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku waxa uu dhammaan ummadda Puntland ugu baaqay nabadgelyo iyo horumar isagoona si gaar ah ula dardaarmay shacabka Puntland ee ku dhaqan waddanka Norway iyo guud ahaanba qurbaha. sharafta leh ee Soomaaliyeed ee ajnabigana leh ee goobtan isugu yimid xafladan runtii aan jeclahay inaan ka qayb galo ay ku wanaagsanaan lahayd hase ahaatee waqtigu iyo wiina kala fogeeyay dantu inta xafladan soo qaban qaabisay iyo inta ka soo qayb gashayba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. waxaan makaloo idinka mahad celinaya in aad ii ogolaataan inaan idinkala hadlo codbaahiya. waxaan leeyahay oo hadalkayga kusoo gabagabaynaya nin la sugayo waad ma yaad sugi. idinka dalku waa idin sugayaa, idinku yaad sugaysaa. ummaddu waa idiin baahan tahay. waxaan idin leeyahay hambaliyo mar labaad iyo saddexaadba. waxaan idin leeyahay guul baan idin leeyahay. waxaan idin leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin. sidoo kale waxa ayana madasha ka hadlay siyaasiyiin, aqoon-yahamiin, odayaal iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Norway ayagoona soo dhaweeyay 17 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Puntland. sidoo kalena waxa salaan iyo hambalyo ay uga wadeen madaxda xisbiyada ay ka tirsan yihiin shacab weynaha reer Puntland. waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinaynaa dhammaan abaabulayaasha xafladdan caawa ee 1 August ee ah dabaaldegii iyo sanad guuradii 17aad ee aasaaskii Puntland. xafladdan caawa waxaa suurtageliyay jaaliyadda Puntland ee Norway BDF oo hogaamiyaha u yahay ama gudoomiyaha u yahay injineer Cabbaas. taasi mar labaad Puntland waxay ka dhigtay inay noqoto hooyada federaalka Soomaaliya. laakiin intaas hawshu kuma dhamaan. waxayna define gareeya waa Soomaalinimada. waxaynu sharaf ku leenahay qarannimo iyo midnimo. asxaabtayda soo abaabushay xafladan quruxda badan iguna casuuntay aniga oo kale ayaga u sababay inaan mikrofoonka hadda gacanta ku hayo. waa mahadsantihiin. caawa waxa na kulmiyay oo aan maaragtay u dabaaldegaynaa waxay tahay sanad guuradii 17aad ee Puntland, maamulka Puntland. madaxweyne ku-xigeenka markuu hadlayay asiga sharaxay furitaankii intii qofooda iga horeysay way sharaxeen taariikhda ay leedahay Puntland iyo meeshay ka soo bilaabatay. uma baahni markay inaan anigu dib ugu noqdo ayada. waxaan leeyahay maaragtay waxaan ugu hambaliyaynayaa nabadda iyo xasiloonida shacabka ay ku dhaqan deegaankaasi ay ku nool yihiin.
ugu dambeyntii waxaa xafladda soo xiray gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Puntland ee waddanka Norway Mustafa Xaaji Siciid oo ku magac dheer Garaadka. isku soo wada duubo xafladan lagu xusayay sanad guuradii 17aad ee asaaska Puntland ee lagu qabtay waddanka Norway ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi farxadeed oo aad u qurux badan.